السلام عليكم. soo noqod wanaagsan. 10 calaamadood oo ku tusaya guushaada, yacni inaad ku guuleysanayso nolosha. Sida ognahay, noloshu had iyo jeer ma aha wado cad, yacni mid mar walba fudud. Mararka qaarkood way adkaan kartaa. Sidoo kale mararka qaar way adkaan kartaa in si dhab ah u qiyaasno sida ugu wanaagsan ee aan u qaban lahayn wax, yacni wayga ugu wanaagsan ee aan wax qabashadooda u mari lahayn. miyaan ku guuleysanaynaa, miyaan ku khasaaraynaa, xitaa sida u qeexno guuleysiga ama yacni guusha nolosha, ama aan dhahno sideen ugu guuleysanaa wax aan rabno inaan ka guungaarno. haddii aan ku sheego ka waran in cilmi nafsigu uu jawaabo inoo haayo, yacni ka cilmi nafsi ahaan baaritaan la sameeyey ayaa soo saareen jawaabaha aan rabi lahayn, yacni ama aan u baahnaan lahayn inaan helno. runtii waxaa jiro calaamado gaar ah oo tilmaamaya inaan ku soconno waddadii saxda ahayd iyo in kale, yacni waddadii aan ku gaari lahayn meesha aan rabno. haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 10 ka mid ah calaamadaha tilmaamaya inaad ku guulaysato nolosha. qaarkood ayaa laga yaabaa inay kaa yaabiyaan. haddaba kusoo dhawow muuqaalkayna maanta. okay, aan bilowno. qodobka koowaad, waxaad ku nooshahay waqtigan xaadirka ah. yacni ma tihid dadyowga waqtiga ugu lumay inay ka fikiraan, yacni ama ay ka murugoodaan wixii tagay, ama ay walwal ku hayso mustaqbalka, yacni wax dhici doona. miyaad isku aragtaa inaad si joogtaa ugu nooshahay waqti hore ama ka walwalsan tahay mustaqbalka? mise waxaad isku aragtaa in waqtigan xaadirka ah aad ku xididaysan tahay, yacni aad ku xiran tahay oo aad dhadhaminayso daqiiqad waliba waqtiga ay imaato? marka loo eego cilmi nafsi ahaan, kuwa hadda ku nool, yacni aan ka walwalsanayn wixii tegay, sidoo kale aanan ka walwalsanayn oo fikir ku haynin waxa dhici doona, waxay u badan tahay baa la dhahaa inay ku guulaystaan nolosha. fikraddan waxay si dhow ula xiriiri kartaa ama ula xiriirtaaba aan dhahno miyir qabka, yacni caafimaad iyo deganaan maskaxdeena. maskaxdu waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan joogno, aan xaadir ahaano, in aan diiradda saarno ficiladeena iyo waayo aragnimadeena hadda, halkii aan waqti ku lumin lahayn shalaytadii hore ama ka walwalidda mustaqbalka. ku noolaanshiyaha waqtigaaga xaadirka ah ma aha keliya inay kaa yaraynayso walbahaarka iyo yacni daalka maskaxda, laakiin sidoo kale waxay naga caawinaysaa inaan si buuxda u qadarino nolosheena xaadirka ah. waxay naga caawinaysaa inaan samayno ficilona anfacaya, aan qaadanno go'aamo wanaagsan oo yacni aan tallaabo hore u qaadno, waayo waxay fiiro gaar ah siinaysaa waxa hadda dhacaya, halkii aan ku mashquuli lahayn wax tegay ama wax aan la gaarin. soomaalidu waxay tiraahdaa wixii tegay tiigsamaan male, yacni in wixii tegay aad ka murugooto waqti waliba, waqti unbaa kaaga lumaya, wixii ma soo laabanayaan. wax aanan la gaarin inaad ka walwalsanaatid, aad ku fikirtidna dabcan wax yacni macnaha ay kuu soo kordhinayso ma jirto. haddaba haddii aad isku aragto inaad si buuxda ugu howlan tahay waqtigaaga xaadirka ah, adoo dhadhaminaya qiimaha subax waliba ee aad la soo toostay caafimaad, oo aad sideeda uga faa'iidaysato, waad ku guulaysan doontaa nolosha. qodobka labaad, waad ku qanacsan tahay waxa aad haysato. ma og tahay ku qanacsanaanta, yacni ku raali ahaanshiyaha waxa aad haysato waa fikrad aad u adag, waa fikrad aad u wanaagsan, waa fikrad aad wax badan ku dareemi karto, ku dhadhamin doonto. waxaan ku noolnahay adduun, yacni nolol si joogto ah inoogu sheegaysa in aan u baahannahay wax badan to be happy, yacni si aan u faraxsanaano inaan u baahannahay wax badan, lacag aad u fara badan, guri aad u weyn, gawaari iyo wax la mid ah. laakiin taasi run maahan, wayna ka fog tahay xaqiiqda. dadyowga dareemaya inay ku qanacsan yihiin waxa ay haystaan, waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku faraxsan noloshooda, ka farxad badan, kuwa had iyo jeer u hanqaltaaga oo yacni mar waliba raadiya wax ka maqan, oona ahaanayaan kuwa guulaysta. runtii fikraddan waxay si buuxda ula socotaa dhihi karaa, ama ay ku dabaqan tahay dhaqankaygii ama fahamkaygii muddooyinkii ugu dambeeyey. tusaale ahaan, cuntooyinka qaar baan nacbanaan jiray, yacni aanan cuni jirin. ay dhici jirtay in bilooyin aanan cunin si walba oo guriga loogu koriyo. lacalla haddii ay dhacdo oo ku qasbanaada inaan cunana, yacni anigoo isku dirqinayo ama wejigayga noocnooc kale ka dhigayo inaan cuno, ilaa waqti dhow aa ku fikiray oo is iri dad aana haysan baa jira, yacni dad cuntada adigana si kale aa u arkaysid ama aad necbaysanaysid aana haysanin baa jira, oo yacni aan ku baraarugay ama aan isku iftiimiyey inaan ku qanacsanaado had iyo jeer wax aa haysto.
in wixii aan yacni aan u arko liidashaa oo kale ama inay igu yaryihiin oo kale aan ku fikiro aan xasuusto in inta yartaa oo aniga hayaba qof aanay xitaa u bilownayn uu jiro. marka waa inaad ku qanacsanaato oo aad qadariso waxa aad hore u haysatay, yacni waxa aad haysato oo aad garato qiimahooda. mar waliba aad dareento inaad isku aragto inaad wax badan aad u hiloobayso, aad raboonayso wax kaa maqan oo aadan haysan, isku day inaad dib u eegto, aad qadariso waxa aad haysato. waxaa laga yaabaa inaad garwaaqsato inaad nolosha hore ugu guulaysatay siyaabo aadan hore u aqoonsan, oo aad ahaato mid qanacsan oona aad u faraxsan. midda saddexaad, waxaad ku socotaa waddo is-horumarineed, yacni waxaad ku howlan tahay horumarinta naftaada. aan ku xirno qodobkii hore, inaad ku qanacdo waxa aad haysato macnaheeda maaha inaad joojiso koritaanka ama horumarinta. dhab ahaan mid ka mid ah calaamadaha la hubo oo ay hubaal tahay inaad ku guulaysanayso nolosha waa inaad u heelan tahay, u diyaar tahay, ku dadaalaysid horumarinta naftaada. waxaad arkaysaa guulaystayaasha weligood ma joojiyaan waxbarashada, yacni inay buugaagta akhriyaan, inay wax cusub bartaan, waayo waxay og yihiin inay mar waliba sii horumari karaan oo mar waliba kori karaan oo mar waliba sii noqonayaan nooc ka wanaagsan nooca ay markaas yihiin, oo yacni ay kasii horumari karaan meesha ay markaasi joogaan. tani ma aha macnaheeda keliya inaad akhrido buugaag badan, inaad iska diiwaangeliso koorsooyin cusub oo tiro badan. maya, waxay ku saabsan tahay ku dadaalidda inaan noqono qof ka wanaagsan maalin kasta, yacni inaan ka wanaagsanaano, aan ka durugsanaano qofkii aan shalay ahay, ficiladeena, hadalladeena iyo fikradaheena intaba. bishaarayso, haddii aad ku jirto safar is-horumarin ah, ku faan, waxaa hubaal ah inaad ku guulaysanayso nolosha. midda afaraad, waxaad ilaalisaa cilaaqaadka caafimaadka qaba. waxaa ula jeedaa dadka aan ku xeerannahay ama dadyowga anaga nagu xeeran waxay saameyn weyn ku leeyihiin nolosheena iyo wanaaggeena. haddii aad ilaaliso cilaaqaadka kaala dhexeeya faamligaaga, asxaabtaada, dhinac waliba aad asxaab ka tihiin, dhammaan qoyskaaga iyo sidoo kale dadka xiriirada kale idinka dhexeeyo, waa calaamad cad oo ah inaad ku guulaysan doonto nolosha. waayo waxaa la og yahay isku xirka bulshada inay fure u yihiin farxaddeena iyo caafimaad qabka maskaxdeena. balse ogow, ma aha oo keliya tirada cilaaqaadka ee waxay ku saabsan tahay tayada. ogow, dadku way ilaabi doonaan waxa aad dhahday, dadku way ilaabi doonaan waxa aad samaysay, laakiin dadku weligood ma ilaabi doonaan waxa aad dareensiisay iyaga, ama ay ku arkaan in maalin aad dareentay iyaga. marka aad qaadato waqti aad dib ugu milicsato cilaaqaadkaaga, ma waxay ku dhisan yihiin ixtiraam, isfahan iyo kalgacayl? ma ku dadaashaa inaad dadka kale dareento qiimahooda, aad dareento, aad qiimayso? runtii taasi mar waliba ma fududa, laakiin joogtaynta iyo wanaajinta cilaaqaadka caafimaadka qaba waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu faa'iidada badan ee aan samayn karno. marka haddii cilaaqaadkaaga uu yahay mid adag oo dhammaystiran, oo aadna og tahay oo aadan luminin qadarinta naftaada, hubaal waad ku guulaysan doontaa nolosha. midda shanaad, waxa aad fahamtay qiyamkaaga asaasiga ah. ogaanshiyaha qofka aad tahay iyo waxa aad u taagan tahay waa tilmaame awood leh oo ku tusinaya guusha. fahamka qiyamkaaga asaasiga ah waxay la micno tahay in aad waqti siisay, in aad ka fikirtay waxa run ahaantii adiga muhiimka ku ah, oo aad samaysay go'aan ah inaad isku hagaajiso ficiladaada ku waafaqsan. waxaan marar badan arki karnaa in fahamka qiyamkeena uu nagu hagayo go'aamo adag oo aan diiradda saarno waxa dhabta ah ee muhiimka ah. mid ka mid ah dariiqyada aad si fudud ugu fahmi karto qiyamkaaga waa iyadoo la sameeyo layliyo ama assignmentyo loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad milicsato oo aad aqoonsato, inaad caddayso wax kugu muhiimsan, taas oo markaasi kugu hagi karto go'aan qaadashadaada oo kaa caawin karta abuurista nolol ku habboon cidda aad dhab ahaantii tahay. haddii aad waqti gelisay inaad fahamto qiyamkaaga asaasiga ah, bali calaamadaasi waa calaamad cad oo muujinaysa inaad ku guulaysan doonto waxa aad rabto. midda lixaad, waxaad tahay qof adkaysi leh, qof dhabar adeega. ogow, noloshu waa mid ay ka buuxaan hoos u dhacyo badan, guuldarooyin badan, laakiin waa sida aan uga jawaabno caqabadan waxaa dhab ahaanna qeexaya qaabkaan uga falcelino. haddii aad awoodid inaad kasoo kabato dhibka, inaad wax ka barato qaladaadkaagii oo aad hore ugu sii socoto si ka xoog badan sidii hore, hubaal waad guulaysanaysaa. awooddaas ayaana ah waxa loogu yeero adkaysi.
dhowr adayg. Adkaysiga micnihiisu ma aha inaadan weligaa dareemin xanuunka ama murugada, ee waxay la macno tahay in dareenkaas aad marayso aad ka soo kabato. waa inaad kobciso adkaysigaaga xitaa markii aad la kulanto dhibaato. isku day inaad hesho wax wanaag ah, yacni inaad ka dhex hesho jabkaas wax oo wanaag ah ama cashar laga barto. isbeddelka maskaxda waxa uu samayn karaa nolol kala duwan. ma ahan inaan weligeed la dhicin, ee waa in mar waliba oo la dhaco dib loo soko. haddii aad tahay qof adkaysi leh, waad guulaysan doontaa shaki la'aan. midda 7, waad mahad celisaa wax badan oo ku celcelisaa mahadnaqa. dabcan mahadnaqa muuqaal dhan ayaan uga hadalnay, yacni oon mawduuc uga dhignay, halkaanu kaaga soo bixi doonaad ka daawan doontaa. mahadnaqu waxaan ku tilmaami karnaa waa qalab awood leh oo diiraddeena ka beddelaya waxa ka maqan nolosheena. yacni waxaan uga badbaadaynaa inaan diiradda saarno bes wax inaga maqan, oo noo soo wareejiyo beddelkeeda inaan aragno waxa tirada badan ee aan haysano. go'aankaygii ama garashadaydii aan dhowaanahan bilaabay inaan ku dhaqmo, waxaan ogaaday in ku dhaqanka mahadnaqa uu ahaa mid ka mid ah waxyaabihii iigu wanaagsanaa. waxay dib iigu soo celisay waqtigayga xaadirka ah, iyadoon i xasuusinaysa nimcooyinka badan ee aan haysto, mid weyn iyo mid yarba. daraasado cilmi nafsi oo la sameeyey ayaa waxay muujinayeen in dadka sida joogtada u mahad celiya ay la kulmaan shucuur aad u wanaagsan, dareemaan nolol qurux badan, hurdo fiican, muujinayaan ama ka muuqato naxariis aad u fara badan. xitaa caafimaad ahaan habdhiska difaacoodu uu wanaagsan yahay. inaad mahad celiso waa wax aad u fudud runtii. in maalin kasta aad ku fakarto waxa ay tahay inaad ku mahadiso, waxay doonaan ha ahaadaan, ama si fudud inaad ku mahadiso xaqiiqda ah inaad nooshahay oo aad neefsanayso. alxamdulilah. haddaba haddii aad tahay qof si joogto ah ugu dhaqmo mahadnaqa mar waliba, bishaarayso, waxaad ka mid tahay dadyowga ku guulaysan doona nolosha. midda 8, waxaad la qabsan kartaa isbeddelka. isbeddelka sida ognahay waa waxa keliya ee joogtada ah nolosha, yacni waqti waliba wuu dhacaa isbeddelka. sida uu la qabsano isbeddelkana waxay wax badan ka sheegayaan shakhsiyaddeena iyo sida wanaagsan aan u qaabilno nolosha. kuwa la qabsan kara isbeddelka iyo duruufaha cusub ee ku yimaada, arrimaha kusoo kordha, oo kuwa nolosha sida dhabtaa ku guulaysta. waxay fahmeen in isbeddelku uu yahay lama huraan, waxayna diyaar u yihiin inay la jaan qaadaan isbeddel walba uu yimaado, inay la jaan qaadaan. la qabsiga micnihiisa ma aha inaadan dareemi doonin raaxo la'aan ama wax xanuun ah. markaad la kulanto isbeddel, waxay la micno tahay in aad awoodid ama aad ka gudbi kartid dhibkan, oo aad ka soo baxdo dhinaca kale. haddaba haddii aad la qabsan karto oo aad awood u yeelan karto in aad isbeddelka nolosha si tartiib ah u qaado, keliya naftaada sii taabo dhabarka oo sii riix, yacni waxaa hubaal ah in aad guulaysan doonto insha allah. midda 9, waxaad caadi ku tahay oo aad og tahay yacni in aadan kaamil ahayn. yacni okay baad ku tahay inaadan kaamil ahayn. adduunyadu inta badan, amaba aan dhahno dadyowga badankooda, ayaa nagu cadaadiya inaan kaamil noqono, oona dabcan wax suurtagala aan ahayn. ku qanacsanaanta cilladaha waxay noqon kartaa mid aan caqligal ahayn, yacni waxay u muuqan kartaa mid aan caqligal ahayn ama dadka qaar ay u arkaan. si kastaba ha ahaatee, waa calaamad cad oo muujinaysa inaad ka mid tahay kuwa ku guulaysta nolosha. aan ku raaciyo, ogow ku dadaalidda ama isku dayga kaamilnimada inay keeni karto walaac ama walwal fara badan iyo xitaa niyad jab. dhanka kale, aqbalidda ceebaha iyo qaladaadkeena waxay horseedi kartaa koriin shakhsiyadeed iyo horumar. waxaan ogahay oo aan bartay in aysan ahayn inaan kaamil ahaado, balse ay tahay inaan run ahaado. la soco, ma jiro bani aadan dhammaystiran. qof waliba meel buu ku liitaa, meel buu ku fiican yahay. ma jiro qof cilad la'aan ah. midda 10 ee u dambaysa, waxaad daryeeshaa caafimaadkaaga. caafimaadku waa hanti. haddii aad tahay qof daryeela caafimaadkiisa jir ahaan iyo maskax ahaanba, waa calaamad lagu yaqaano guulaystayaasha. cunista cunno dheelitiran oo runtii dhankeeda aan aad ugu liidano, jimicsi joogto ah, hubinta inaad haysato nasasho kugu filan. runtii dhaqamadani waxay noola muuqan karaan waxyaabo fudfudud oo sidaas diiradda uma saarno. cunto allaala cuntada doona iska cunnaa. qofka xilligii shaqooyinka usoo dhammaadaan ama ay caajis uu dareemo ama niyadiisa ay ku soo dhacdo inuu seexdo, ayuu iska seexdaa. subaxdii inuu soo kaca horu u socdaa. yacni arrimaha qaar dhankeena ahaan ka Soomaali ahaan waa ku liidana, laakiin waxay wax badan ka bedelaan samaqadkeeni guud.
xusuusnow caafimaadkeeni maskaxeed iyo keeni shucuureedba waxay muhiim u yihiin sida caafimaadkeeni jir ahaan uu muhiim u yahay. Marka ha ka gaabinin inaad waqti u qaadato hawlaha isdaryeelka ee kaa caawinaya inaad nasato. Daryeelka caafimaadka ma aha micnihiisa keliya inaad noolaato waqti dheer, oo yacni ka wado in niyadaada ay ku jirto haddii aad xanuunsato waad dhimanaysaa oo kale. Laakiin waa in si ka wanaagsan daryeel la'aanta aad u noolaato. Haddaba haddii aad tahay mid ku dadaala caafimaadkiisa, waa calaamad kale oo muujinaysa inaad ku guuleysan doonto nolosha. Haddaba ugu dambeyntii, noloshu waa safar ma aha meel loo socdo. Yacni waa meel laga socdo. Waxay ku saabsan tahay koritaanka, barashada iyo noqoshada nooca ugu wanaagsan. Yacni inaad noqoto qofka aad rabto iyo inaad Rabbiga raali geliso. Haddaba haddii aad isku aragtay 10kan calaamadood ee aan soo sheegnay ama mid ka mid ah, mar kale bashaarayso. Hambaliyo, waad guuleysan doontaa insha Allah. xusuusnow maalin kasta waa fursad cusub oo aad ku kori karto, oo aad ku horumarin karto noloshaada, oo aad yacni tallaabo cusub hore ugu qaadi karto. Marka xitaa haddii aanad ku arag noloshaada calaamadahan aan hadda soo tirinay, ha niyad jabin. Hadda ka bilow inaad fahamto qiyamkaaga asaasiga ah. Wuxuu noqon karaa barbilow fiican. Marka aad ogaato waxa dhabta ah ee adigu khuseeya, waxaa kuu fududaanaya inaad gaarto go'aamo kuu soo dhaweynaya nooca guusha aad rabto. Sii wad dadaalka. Ugu dambeyn, muuqaalkan maanta halkaan ayuu ku egyahay. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. fadlan ha iloobi muuqaalka inaad like saarto, aadna sii share garayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bye bye.